muuqaalkeenan waxaan ku baran doonaa luqadda programming-ka ee xilligan ugu caansan Python. waa luqad la sameeyay sanadii 1990kii. haddaba maxay tahay sababta aynu barayno Python ee inoogu soocaysa luqadaha kale? hagaag, Python waxay luqadaha kale ee programming-ka kaga duwan tahay qodobo ay ugu muhiimsan yihiin qaabka fudud ee aad ku baran karto iyadoo ka fudud luqadaha kale ee programming-ka. waynu arki doonaa sida loo qoro Python iyo sida loo qoro luqadaha kale, markaas aad si fiican u fahmaysaa fududaanta ay fududahay. waxyaabaha kale ee kaga duwan tahay waxaa ka mid ah in Python oo isticmaalo meelo badan sida web development-ga, data analysis-ka, machine learning-ka, horumarinta iyo samaynta games-ka, iyo meelo ka mid ah cyber security-ga. qodobkani waxay noo sahlayaan inaynu ka maarano barashada luqado badan oo haddii hal luqad intaas oo dhan ku qaban karto uma baahnid inaad barato luqadaha u tiro badan. sidoo kale Python waa mid ka kowris yar luqadaha kale. taa macnaheedu waa in hal line oo Python ahi u dhigmi karo 5 iyo wax ka badan oo luqadaha kale ah. waxaa jirta in dhalin badani ay soo codsatay HTML, CSS iyo JavaScript, balse inagoo isbarbardhigayna Python iyo HTML waxay noo soo baxday in Python uu ka muhiimsan yahay kana isticmaal badan yahay HTML. marka insha Allah waynu isla eegi doonaa waxyaabo ku saabsan web development-ka iyo luqadaha kale. intaas aynu ka nimaadno oo dhacaas kooban aynu gudagalno practicalka. ugu horeyn aynu ka bilowno inaan la soo degno Python. si aad la soo degto soo gal browserka, waxaadna ku qortaa python.org. hoosu soco, waxaadna la soo degtaa Python 3. kadibna waxaad doorataa operating systemka kugu jira ee aad isticmaalayso. markuu kuu soo dego Python, waxaynu isagana soo dejiyaynaa IDE-gii aynu ku isticmaali lahayn. IDE waxaa laga soo gaabiyey Integrated Development Environment, waana meesha aynu ku qori doono codska ee inoo ogolaan doonta inaynu isticmaalno Python. soo furtaa cusub, waxaadna ku qortaa PyCharm. PyCharm waa software-ka inoo ogolaanaya inaynu rangarayno ama isticmaalno Python. waxa uu leeyahay laba qayb professional ah waana qaybta lacagta iyo qayb community edition ah oo wax qaybta free-ga. marka waxaan la soo degaynaa qaybta community edition-ka ee free-ga. kadibna download taabo, kadib dooro operating systemka kugu jira. marka kuu soo dego PyCharm, aan soo furano Python si aan u install garayno. markaad soo install garayso Python, waxaan isagana soo install garaynaa PyCharm. marka aniga already imka igu jira. kadib ayaan soo furano PyCharm. kadib waxaan samaysaynaa new project taabo, kadibna magaca u bixi project-ga. sidiisan ayaan u daynaynaa iminka. marka uu project ku furmo, waxaad taabanaysaa halkan right click C, kadibna taabo new. kadibna waxaad si doorataa Python file. waxaad noo bixisaa magac. tusaale ahaan hadda waxaan ku qoraynaa hello world. okay, aynu bilownaa haddaba qaabka loo qorayo Python. Python waxa ugu horeeya aad ka bilaabaysaa waa print. function-ka lagu magacaabo print. print waa mid ka mid ah functionska ugu muhiimsan ee noo soo saaray qoraalada. marka si aad u isticmaasho print, waxaad qoraysaa print, kadibna automatic kuu soo baxaya. haddaad inter taabato waa caadi, haddii kalena aad qorto waa okay. kadib markaad print qorto, waxaad ku xaysiinaysaa double quotation mark. double quotation mark dhexdeeda aadna ku qoraysaa qoraalka aad rabto inaad soo daabacdo ama qoraalka rabto inuu ka soo muuqdo shaashadda. haddii aad qorto single quotation mark waa okay oo waa caadi oo wax error ah ka soo saari maayo, balse waxaa la doorbidaa inaad qorto double quotation mark. okay, halkan waxaynu ku qorno ayaa nooga soo baxaya shaashadda. tusaale ahaan haddaynu qorno ku soo dhawow Python oo aynu taabanno run oo ah calaamadda halkaas ku taalla, waxay halkan nooga soo baxaya ku soo dhawow Python. intaan isla fahanay, haddaba bal aynu wax yar ka tilmaamno qaabka loo qoro luqadaha kale. tusaale ahaan haddaynu soo qaadano luqadda C++, si aad u qorto ku soo dhawow Python, waa inaad qortaa #include iostream int main
kadib furo bracket full waxaad ku qortaa std double dot cout halkan ayaad ku qoraysaa daba qoraalkaad rabto inuu soo baxo ku soo dhowow Python kadib endline kadib ku xiseensa return 0 maaragtaa intaas oo line ayaa ku soo saaraysa ku soo dhowow Python marka la joogo C++ balse marka la joogo print waxa soo line ah waxa kaaga filan line ka kaliya ee ah print ku soo dhowow Python wow luqad aad u fudud Python marka loo eego luqadaha kale inta kadib waxaan baraynaa waxa loo yaqaano variable variablesku waa meesha aan ku kaydsan doono xogaheena oo waxay noo haynaysaa xog tusaale ahaan haddii aan rabno inaynu qorno xog badan oo dheer hadhowna ay rabno inaynu dib isticmaalno waa inaan ku soo kaydinaa variableku wuxuu naga caawinayaa inayna xogtii soo celcelin aynu mar kastaba dib u qorin tusaale ahaan haddii aynu qorno variableka magac kadibna aynu ku kaydino magac dheer tusaale ahaan hebel intaynu mar kasta qori lahayn hebel hadhow waxaynu qoraynaa keliyata print meel kasta aynu uga baahano magaca waxaynu qoraynaa print magaca kadib daranta wato waxay noo soo baxayaa hebel intaynu qori lahayn hebel keliyata waxaan ku kaydinaynaa variablekaas aynu saaraya adu samayso variable waxaad qoraysaa magaca uu yeelanaya variablekaasi tusaale hadduu yahay number waxaad qorto number equal ayaad taabanaysaa waxaadna qoraysaa numberkii 1 2 3 4 5 6 haddaynu isla numberkan soo daawacno aynu qorno print number waxaa noo soo baxaya numberka 1 2 3 4 5 6 haddaba xasuusnow markaad magacaabayso ama aad magac u bixinayso variable waxaa jira waxyaabo ay tahay inaad iska ilaaliso sida inaad u dhaxayso magacyada space tusaale haddaad qorto magaca iyo lambarka ma ahan variablekani variable shaqaynaya waayo waxa u dhexeeya space balse haddaynu qorno sidaan aynu dhaxaysino calaamadda underscore sax ayuu noo noqonaya kadibna waxaad ku kaydsaa 1010193 kadib haddaynu print taabanno print magaca oo kan magaca iyo lambarka waxay noo soo baxay lambarkaasi dheer okay intaas ma isla fahanay intaas kadib aynu baranno noocyada xogta marka la joogo Python iyo guud ahaan programmingska marka la joogo xogta waxaa loo qaybiyaa dhowr nooc waxaana ugu muhiimsan waxa ugu horeeya oo ah string waa marka la qorayo xarfo waliba xarfahaas ay yihiin kuwo isku xiga tusaale ahaan magaca variableka magaca waxaynu u kaydsan waa string okay lambarka haddii eegno variableka lambarka waxaynu u kaydsan waa integer oo waa lambaro aan lahayn wax point ah sidoo kale haddaynu ku xiisino variable kale oo lagu magacaabo decimal waan ku kaydino lambaro point wata sida 19.7 waxa lagu magacaabayaa float oo waa tiro leh points ama decimal sidoo kale haddii xogtu tahay true or false waxaa loo bixinayaa boolean ayaa loo bixinayaa okay intaas ma isla fahanay noocyada xogta iyo magacyada loo kala bixinayo okay haddaba waxaad sidoo kale xasuusnaataa inaad dhowr variable mar wada qori karto tusaale haddaynu qorno a hackles ama comma p comma c kadibna nirahano equal oo aynu qorno 10 19.7 hackad iyo string oo aynu qorno hello haddaynu yaro sharaxno intan
aynu hadda qornay xarafka A waxa uu taagan yahay qiimaha 10 oo halkaynu qori lahayn A waxa la mid tahay 10 B waxa la mid tahay 19.7 C waxa la mid tahay hello waxaasoo dhan isku hal mar ayaynu qaban karnaa oo xarafka A waxa uu taagan yahay 10 B waxa uu taagan yahay 19.7 C waxa uu taagan yahay hello oo ah string marka sida wad u qori kartaa waxaad xasuusnaatay inaad haysto hakad ama comma qiimo kasta iyo variable kasta dhexdooda oo aad sala soo daabacno xarafka B aynu tirano print P way noo soo baxaa 19.7 waka 19.7 ayaa ku keedsan xarafka B intaas misla fahanay haddaba adduunta ka imaadno variableska iyo noocyada daatada waxaan ku xiiseynaa waxa loo yaqaan xisaabaadka iyo soo lagu sameeyo xisaabaadka Python waxaanu sameeynaa laba number saaraan number 1 waxa inoogu keedsan 20 number 2 na waxa inoogu keedsan number 2 waxa ku keedinaa 30 marka aad rabto inaad qorto inaad isku geyso labada number kaliya waxaad qoraysaa print number 1 plus number 2 si fudud ayaad markiiba qori kartaa oo English idea kadib waxaan soo baxay labada marka la isku geeyay tahay content haddaynu ku labaad qorno aynu calaamadda bedelno aynu ka dhigno minus waxaan soo baxaya labada marka la kala jaro qiimaha soo baxaya oo ah -10 haddaynu ku qorno calaamadda ku dhufashada waxaan soo baxay isku dhufashada labada number oo ah 600 sidoo kale waxaa isticmaali kartaa calaamadda u qaybida way la soo saaraysaa numberkaas pointyada haddaad isticmaasho balse calaamadan haddaad qorto calaamadda u qaybida 2 jeer waxay noo soo baxaysaa tiro aan point ahayn oo ah 0 marka haddii aad rabto inaad soo saarto tiro aan point lahayn waxaad qoraysaa 2 jeer ayaad qoraysaa calaamadda u qaybida ama slash sidoo kale waxaad isticmaali kartaa powerka haddaad rabto inaad isticmaasho power waxaad qoraysaa 2 jeer calaamadda dhufashada ama asteriska kadib daawataad wax ku soo baxaysa powerka labada number isku jibaaran powerka ama marka la isku jibaaro labada number oo ah tiradan okay intaas iyagana misla fahanay sida loo qorayo xisaabaadka marka la joogo Python waxaynu ku xiiseynaa waxay yihiin list magaca ka muuqata waxaynu isticmaalnaa inaan ku keensano numbero ama list sida u qorto list marka hore waxaad samaynaysaa magaca uu listkaas yeelanayo salaxaynu ku qorinaa marka magaca uu bixi tusaalahan list kaliya list bas ka dheh kadib list equal wuxuu la mid yahay waxaad soo furanaysaa qoyska noocaasi ah soo furo qoyska noocaasi ah kadibna waxaad ku qoraysaa listka arato sida 1 2 3 4 5 6 haddii aad rabto waad ku qori kartaa xarfo ama magacyo cabdi hakad محمد سالسون وود كده ضربت هنا ليست قاعد تدوس على قطوع القريسة print list كده نحكي واحد نوصل بحياة waxyaabaha ku jira listigaasi oo dhan halkeen maanta mid u qori lahayn okay haddii rabto inaad soo daabacdo mid ka mid ah listiga oo aad kuwa kala soo daabicin waxaad qori kartaa lambarkiisa saad u hesho lambarkiisana halkan ka bilow kan ugu horeeya waa 0 kan 1 2 3 4 5 6 saas ay lambar ugu yeelanaya marka haddaad inka qorto lambarka 0 waxay noo soo baxaya 1 oo ah kaalinta 0 ku jira waka haddaad qorto lambar 8 ama qorto lambar 5
waxay noo soo baxaya xarafka ku jira ama itemka ku jira lambarka shanaad oo ah cabdi. intaas misla fahanay intaan ka bixin listiga sidoo kale waxaad samayn kartaa inaad listiga wax ka bedesho. tusaale ahaan qorno list xarafka ku jira list itemka ku jira lambar 3 waxaad ka dhigtaa tusaale ahaan 10 ka dhig. waa dib u daawacno list waxuu bedelayaa xarafkii ku jiray lambar 3 oo noqonaya 1 2 3 oo ah lambar 5 waxuu inooga dhigayaa lambar 10. okay ma ujeedaa lambar 5 waxuu inoogu bedelay lambar 10. markaa saasoo kale ayaad u bedbedeli kartaa listiga. haddaynu isaga eegno tuples isaguna waxuu la mid yahay listiga balse halka uu kaga duwan yahay waa inaadan waxba ka bedeli karin. haddii aad samayso tuple oo aad tiraahdo 1 2 3 4 5 6 waxba kama bedeli kartid. sidaas ayuunu markasta ahaanayaa oo error ayuunu saaraya disney wax ka bedelaa. error ayuunu soo saaraya disney wax ka bedela. marka halka waxa ay ku kala duwan yihiin labadaasi waa in tupleskana waxba laga bedeli karin halka listiga wax laga bedeli karo oo haddii aad wax qalado aad ugu sii karto ama wax ku dari karto listiga. casharada dambe ayaan si faahfaahsan u sharaxaynaa listiska iyo tupleska inagoo isticmaali doona. sidoo kale casharada dambe waxaan ku arkaynaa mid ka mid ah waxyaabaha ugu xiisaha badan programmingka kaasoo ah if iyo else. muuqaalkana intaas ayuu ku egyahay. fadlan muuqaalka like saar siina sheer gare si uu gaaro asxaab badan. mahadsanid.